وقت مقالة مقالة كلا وحكي عن سنتها مخاحي عانى بيلاذا ولا يراهدوا فدي السما فدي السما صفعا oo laga wareystay BBC-da laga wareystay dadkaan aqoonin bal makhaayadaas waxay uga duwan tahay makhaayadaha kale oo uga caan baxday waa makhaayad shaah oo ku taal bartamaha magaalada Xingalool ee gobolka Sanaag balse si ka duwan makhaayadaha kale halka waxa ka jira xeer cusub oo ay macaamiisha rasmiga ah ee shaaha ka cabaa sameysteen wuxuu dhigayaa in qofka doonaya inuu meherada ka sheekeeyo uu shaaha u shubo dadka markaas fadhiyo oo dhan si loo dhageysto sheekadiisa maqaayada horta fadhisamay waa jirtaa maqaayada waxba kaga duwanaa waa maqaaxi shaah rag fadhiisto ku shaaho kaliya oo waxa uu sanadka Umar wariye Maxamed Saalax uu noo yimi halkan baa barnaamij yar ka sameynay oo ah isagoo codsaday inaan u sameyno inuu balbar bixin magaalada ka waxeeyo dabadeedna warbixintii markuu gudbay BBC-da u gudbiyay adoo hadii la arkay waxa xiriir la soo sameeyay Atoosh oo madaxa BBC-da anta BBC-da isaga iga wareystay ninkii wareysanayay anigu ahaa warbixin iska kooban iyo maxay kaga duwan tahay maqaaxiyaha wax kale kaga duwan Soomaalidu halka kelmad oo la waxay ninkii sheekaya shaaqa qaba Soomaa waa kelmadaas taana waxay dhacday waxa jirtay hadda ka hor waqti muddo hadda laga joogo in rag badan oo odayaalaho hadda dhamaantood waa dhinteen Allah u naxariistay ayaa maqaaxi ku dhow fadhiisan jiray maqaaxidaas niman inta badan reer magaalo qurbaawiyana way hayeen iyo rag magaalada jooga waxay oran jireen marka ninba maalin baa sheekeyn jiray si ay sheekada u kala helaan baa oran jiray maalinba ninka kursiga fadhiisto oo ugu horeeya baa shaaha qaba sheekeeya shaaha qaba soo saareen sidoo ku socon jiray maqaaxida dhan wixii fadhiya marka waa bixinaya hadda marka maalmahaas dhaweyto sababta aan qabanna waxay ahayd markii maxaa Saalax yimi oo barnaamijku uu waxaynayay baa wax la si aan warku u yaacin dadkuna hadeer waxa jira bariga hore ma jirin waxa jira dad maamulada in jira ama Soomaaliland ama Puntland ama Soomaaliya dad ba inuu wax jecel yahay qofku si qofku waxa uu jecel yahay uga sheekeeyo sheekada dadka u sheekan karo baan waxaan u niri ninkii sheekay ninkii Soomaaliya jecel inuu ka sheekeeyo iyo waxqabadkeeda iyo dawladda farmaajona shaaha isaga qaba kiis Puntland jecel inuu ka sheekeeyo waxayna shaaha isaga qaba kii cid kale inuu jecel yahay ka sheekeeyo isaga qaba si sheekada loo kala helo isku dhaxyaacin ba wax la ninkaas intuu sheekaynayo shaaha isaga qaba lagama dhaxal karo markuu soo waqti wado oo sheekada ku daaro uu oran karaa cid oo ka saaxiibkiisa oo kale uu oran karaa isku gruubihi waa si wada karaa laakiin si aan mid kale wax ka tuur uga soo dhicin oo sheekada nuxrigeeda aan looga khalkhalin muhiimadu waxay tahay qofku waxa uu fikirka aaminsan yahay dadka inuu gaarsiin karo ninkii aaminsan Puntland inuu aaminsan yahay inuu Puntland ka dhaadhicin karo waxqabadkeeda iyo wanaaga ay leedahay laga dhaxgeli karin Soomaaliya ninkii aaminsan inuu ka dhaadhicin karo kii xitaa laftiisu Soomaaliland aaminsan oo wada inuu isaguna laftiisu sheekadiisa wadi karo laakiin shardi waxaan uga dhignay inuu soo shaaha qabo dadkuna dhageystaan dadkuna gaar la sugu yimaado xilliyada inta badan waqtiga barqadii oo kale marka la soo kaco 8 subaxnimo ilaa 12 inta ka dhaxaysa oo madaxda la fadhiyo sheekeynaya oo imanaya isaga wata ninkii baad casr oo kale hadii inta badan gelinka hore ayuu barnaamijku ahaa marka qorshahaas qorshe odayaal hore anaga horreeyay soo saareen laakiin waa soo cusboonaysiinay tii hore maan boor ka jafnayo xoogaa waqtigaas media iyo social media ma jirin oo lama gelin tii maan cusboonaysiinay waxaan reebal dadku arkeen barnaamijkana waxa inta badan xaqiiqa la khayr la siiyay waxa wata Maxamed Saalax wariye Maxamed Saalax baa lahaa isagana barnaamijka la yimi anaguna waan kala qayb qaadanay oo waan la wadnay laakiin barnaamijka isaga lahaa BBC isaga u diray gaarsiiyay isaga madaxweeye isaga hawsha isaga lahaa ولينا برنامج كذا وصع صعدا لكن هذا إنك صانو وقت سيدي حولي برجي هو الآن وهين لكن واي محتاج وسيك وحبرشة بتلا مربو يمي صبح صفر يستوي يا ساك أنا شاكر يا شهقبة